kalluumaysatada magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa la soo gabagabeeyay tababar ku saabsan jilaabashada kalluunka sida warkan uu Hobyo inaga soo diray wariyeen Baashi Cali Xaashi. ku dhawaad 30 ruux oo ka kalluumaysta xeebaha Hobyo ayaa ka faa'iideystay tababarkan oo lagu baranayay wadista doomaha casriga ah iyo sidoo kale isticmaalka jaakadaha ayna iska kaashanayeen wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka Galmudug iyo hay'adda FOW waxaana sidoo kale lagu wareejiyay doomo kalluumaysi oo casri ah. Cabdirashiid Maxamed Cabdi agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay hawshan. iskaashatooyinka labad xamar waaqo waxaan rajeynaynaa markay tababarka dhameystaan ay helaan xirfad taasoo maaragtay ma aha isla loo aqoon sida loogu howlgalo doonada import jiniska waxaan rajeynaynaa iyo sida maaragtay ma aha kalluumaysiga loo kalluumaysto iyo GPS-ka. wakiilka hay'adda FOW qaybteeda kalluumaysiga Maxamed Abshir ayaa dhankiisa sheegay in ay ka rajeynayaan kalluumaysatada inay wax weyn iska bedelaan noloshooda inaan kormeero ogaado in laga faa'iideysto barnaamijka waxaan kale u qaabilsanahay hawlaha ka mid ah maxaa laga qaban karaa halkaas yaa loo qabanaya qaabkee loo qabanaya way maqlaysid maxaa laga qaban karaa qaabkee loo qaban karaa waxba laga qaban karaa dadku ma fahansan yihiin ya ma fahansan yihiin waxa loo qabanayo waa intaas kaliya aniga halkan haddaan imaado hawl shaqada waxaa wada wasaaradda hawsheed waxaa waaye rikood baa qaada gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamed Cawaale ayaa tilmaamay inay ka maamul ahaan soo dhaweynayaan xirfadaha kor lagu qaadayo kalluumaysatada Galmudug. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo waxaan maanta goobjoog ka ahay in lagu wareejiyo shaqadii tababarka u dhamaaday haday noqon lahaayeen qalabkii ku shaqaysan lahaayeen iyo doomi warkii nuxurkiisa systemkiisana kullay ragii iga farabudhnaa ee sameeyay ayaa sadida mastira doono laakiin degmo ahaan inaan ku qanacsanahay wasaaradda kalluumaysiga iyo maaragtay hay'adda FOW xoolaha ka wada degmada Hobyo ayaan rabnaa inaan u sheegno Baashi Cali Xaashi raadiyaha TV-ga qaranka Hobyo. guddiga gacanta ku haya dhismaha wadada xiriirisa magaalooyinka Gurceel iyo Dhuuso Mareeb oo dadka deegaanka si isxilqaan ay ku dhisayaan